waagii aan ku jiray tartanka Puntland 2008 baan Boosaaso waxaan kula kulmay nin ganacsada oo shirkad madax ka ah shirkad meel dhexaad oo ilaa wuxuu yiri $7 milyan baan sanadkii ku shaqeeyaa 10 over sanadkii aan ku shaqeeyo waa $7 milyan wuxuu yiri dawladda Puntland sanadkii waxaan siyaab yiri canshuur ah $180 $180 kun ma haya $180 oo maxay tahay wuxuu yiri waa license fee ilbaabkiiba license laga qaadaa marka ma qaan hadii inay isbedeshay waxa ku dhaganaa dabakaayo ninka 7 milyan ku shaqeeyo laba dabaq meelaha degan dabakaayo yara ku dhaganayd markaan ugu bato qiyaas assetka meesha saarnaa waxaan u maleynaa $2,000 bay ahayd asaguna $180 u bixiyaa ko wax macna la kama soo bixi karaan labo it's deeply unfair $180 $1,000 marka la yiraahdo waa han meeqo waa 18% soma waa laga qaaday $180 7 milyan meeqo way 0. intaas percent waa deeply unfair waa dawladnimada inta u jirnay sheegaysa ninkii waxaan ku yiri waxaan maartay cadaalad baa waxa ina inta bixisid wixii waxaan kuugu sheegayaba waa inaysan cadaalad ahayn inaan ku dareensiiyo oo conscious-kiisa diiday maxaa ka qabanaysaa baanina marka waxba kama qabanayo maxaan ka qabanaya waa marka koowaade anigu ganacsadaan ahay shaqadeedu waa to increase profit for my shareholders dadka aniga oo maartay saamileeyda inaan faa'iidada u badiyo way shaqadeeda anigu haddaan la weydiin system dawladda weydiisay aysan lahayn ma siinayo waa mid labaad wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa 180 kaas aan bixiyay xataa wax lagu qabto ma aqaan mujada hufnaanti transparency say muhiim u tahay haddii la ogaan lahaa hufnaanti transparency 180 wax lagu qabto la og yahay intaasaan qabanay intaasaan idinka qaadnay intaasaan ku baxday waxaas ka badan haddaa rabtaan intaasay u baahanaysaa bixiya haddii la yiraahdo dadku waa ku qancayaan markaas moogta